halkaad warkaasina kala socotaan daawadayaal waa istuudiyaha TV-ga Somali Cable uu ku leeyahay magaalada London. markana warbixintii ugu dambeysay ee warka. sanad walba marka gabagabada uu marayo xajka, dowladda Sacuudigu waxa ay soo bandhigtaa mucjisada sanadkaas ee xajka. haddaba sanadkan mucjisada waxaa loo aqoonsaday 8 dhalinyaro ah oo u dhashay wadanka Britain oo magaalada London baaskiil ka qaatay si ay xajka u tagaan. laba bilood ayay u sii socdeen dhalinyaradan inay gaaraan magaalada barakaysan ee Madiina al-Munawwara, iyagoo sii maray dhowr dal oo ka tirsan qaaradda Yurub, sidoo kalena tagay wadanka Masar, kadibna u soo gudbay wadanka boqortooyada Saudi Arabia. dhalinyaradan Britishka ah ayaa la sheegay inay asal ahaan ka soo jeedaan 7 markaasi u dhalatay wadanka Pakistan oo haysta dhalashada wadanka Britain, iyo muwaadin ka soo jeeda isna wadanka Sri Lanka oo isna haysta dhalashada wadanka Britain. muddo 3 sano ah ayay qorsheynayeen in ay safar dhulka ah uga soo ambabaxaan magaalada London oo ay ku nool yihiin, iyagoo markaa doonayay inay sameeyaan mucjisadii ugu weyneed adduunka. qofkii ugu horeeyay ee markaasi isagoo isticmaalaya baaskiil ka baxa magaalada London oo ku soo xajiya xajkiisana si nabadgelyo ku gutaa. haddaba warbixintan intii aanay soo bixin ayaa dadka ku dhaqan magaalada Madiina al-Munawwara ee wadanka boqortooyada Saudi Arabia oo lagu tiriyo inay yihiin dadka ugu soo dhaweynta wanaagsan dunida, isla markaana haysta ducadii Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee, ayaa markii ay maqleen muwaadiniintan Britishka ee ka soo safray magaalada London iyagoo wata baaskiil inay markaa ku soo dhaweeyeen nashiidadii markii Nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam uu galayay magaalada barakaysan ee Madiina Munawwara, ay markaa dadkii halkaa deganaa ku soo dhaweeyeen. maamulka Madiina al-Munawwara, culimada masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee magaalada Madiina ayaa u gudbiyay dowladda Sacuudiga in sanadkan ay tahay mucjisadii ugu weyneyd muwaadiniin British ah oo baaskiil kaga soo baxay magaalada London in ay soo gaareen boqortooyada Saudi Arabia. daawadayaal warkii oo aad kala socoteen Somali Cable stuudiyiisa magaalada London, anigoo Cabduqaadir Nadaaraan aan idin la socodsiinay. waa naga inta aan mar kale kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.